الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عبد الله سيدتهين ما في عنتهين بعد ما سنتهين إلهي بما هذا إسكاله برنامج كان ما أنت أنا سكوي معني برنامج مدبر نسوي صحيح وها ما أنت أنا وحوم لين قبل دي سنة جوا وأنا ما لين ماشي وح ما أنت سكوي مع وارد عبد الله وعن كهنا اللي يرى ولا لهنا نائم هذا ميديا تيم كه markii koowaad waxaan aad u salaamahayaa ugaas qorane ugaas soo dhawow aad baa u mahadsan tahay waxaa maanta farxad ii ah inaan ugaaskii dalal cabdille aan garab isku nahay oo barnaamijka uu qaybna laga yahay sidoo kale waxaa aad ugu faraxsanahay ugaaskeenii cali barre inuu asagana maanta meesha joogo barnaamijkaas aad baan ugu faraxsanahay waxaan u maleyn wixii hadal ahaa duqeyda dhameeyeen borosee soo socday muddo sanad iyo bar ama 2 sano yaa maanta meeshan ku gabagaboobayaa laakiin waxaa nasiib darre maasalid aad waa maasalid baba waxaa nasiib darre inay dad isku dayayaan inay dib noo celiyaan inaan dib u noqonnana diyaar uma nihin waad ogtihiin عبد الخير عبد الله دوبو لبكون يا لباتن يا لبادي نكره أفكار وترتم هاي واسمه طبعا كنا عضو هلا برنامج كي مركز لجسوا قدوم يداب وحد وقتهين اللي سكوي ما هذا يقول لك عبد الله سدح مالين لفديي رأي أفكار وتشدي وجاز كره أفكار وماشى خصوصا قاضي خيرو أو يري 2027 markii la gaaro qof kale oo reer afgaab oo kursi soo sheegan kara ma jiro arintaas oo marxaati ka maynayaan meesha Soomaaliya joogin ilaahay baa marxaati ka anigana marxaati baan ka maalinka meesha waan fadhiyay 500 oo qof oo reer afgaabna way fadhiyay aniga maanta wax isbedelay ma ogi go'aankii ugaaska uu soo saaray maalinkaas aan ogaa xogaaga yara ee khilaafka ah ee reer dal Cabdilla dhaxdeeda ku jiray in laga shaqeeyo oo la heshiisiyo markay dhamaatane meeshii ugaasku uu Soomaaliga ku dhuftay lagu dareero ma sugeynay Sooma ma wax kale ka bedelan baa jira waxaan u maleyn go'aanka mar hore uu ahaa 2022 baa go'aanka la soo saaray waxa noo soo haray waxa weey inaan hor u dhaqaaqno reer dal Cabdille inta maqan aan raadino reer afgaab aan u tagno cawliyahan iyo dadaab aan codna aan raadino soo saasma barnaamijkaasna hadduu Ilaahay yiraahdo maskax badan iyo juhdi fara badan buu u baahan yahay maskaxda iyo juhdigaana waan gelin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaad ogtihiin maanta inaan wax fara badan ka hadla marin waxaan rabaa inaan dib u dhigto shaqo badan oo noo taal haddii Ilaahay yiraahdo oo dhadhaab la aado meeshan maanta waa caleemasaar waa go'aankii reer dal Cabdille waxaan u maleyn certificate waxaan noo bixin doonaa ugaaska reer dal Cabdille waxaa yar nasiib darre inkastoo arinta inaan ka hadla aad ugu faraxsaneen culamo cid ah barnaamijka noo daadinayay culamadii waxaan dhihi karaa wax baa ka hadlaaba waa nasiib darro waayo shirki ka horeeyay oo aan imaaday oo ayaga igu yeereen waan la hadlo waan la taliyo waan waaniyo waxaan ku iri hadduu wax nigu adkaado dalal Cabdille dib ugu soo celiya arinta Soomaaliya joogin duqeydi ma joogin soo joogan arintaas oo ma dhihin war hadduu wax nigu adkaado reer dal Cabdille intuu laba geed kala gali lahaa arinta dib ugu soo celiya reer dal Cabdille go'aanka ugu dambeeyay waa dad aan u dhigo kaas u ahaa wax dib u soo noqdana ma haynay lahayd marka waa nasiib darro maana filayna arinta inay maanta dhacayso laakiin maanta waxaan ku xumahay in dalal Cabdille laba meel la kala joogo aad baan ugu xumaa kuma farxasin anigoo mas'uul laakiin waa nasiib darradii taagneed 2022 baan arkaa maanta inay taagan laakiin waxaad ogaataan ninkii walaalkii garabkiisa ka baxo asagana garab meela saas moogtiin ninkii walaalkii garabkiisa ka baxo asagana garab meela meel walba ku mashquul wareeg walba aad gurigaada baad ku soo noqon marka maxaa weeye nin walba gurigiisa ha joogo hore aan u dhaqaaqno shaqo badan baa noo taala hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan u maleyn go'aanka meeshan ka soo baxo hadduu Ilaahay yiraahdo maanta ugaaska uu hogaaminayo reer afgaab baa loo geyn doonaa Sooma ugaas
go-aanka meeshan ka soo baxo reer afgaab baa loo geyn doonaa dhadhaab baa lala aadi doonaa cabsina annaga ilaahay nama barin dadka cabsada ilaahay naguma badarinba waxaan qabnana waan sheegnaa ciddaan ka xunnahayna waan sheegnaa cidda khaldanna waan sheegnaa fara badan oo mashquul leh oo reer afgaab dhex yaallo sababna ay u yihiin in yar oo reer afgaab ah yaa jirtaa cid walbana way ogtay intaa yar ee reer afgaab meel u diiday shalay kursi u diiday maanta kursi u diidan inay dhaqmadaan u diidan hadduu ilaahay yidhaha waan ka tashan doonaa annagoo reer afgaab anigoo af mas-uuloo reer afgaab ku hadlahayo inta kale ee reer afgaab ee maskaxdooda ay saliimka tahayna la kaashanahayo inta yar ee reer afgaab inay dhaqmaan u diidan waan ka tashan doonaa markaan saa leeyahay ani maanta mas-uuliyad baan hayaa soo ma qofka keli ee reer afgaab maanta dhadhaab county matalaya waa ani laga bilaabo baahuuri ilaa haamey culayska haamey baa lii keeni kii baahuuri baa lii keeni hal qof oo reer afgaab oo mutacallin ah ama aqoon-yahan ah ama beec mushtir ah waayo nin walba tuuluu ku abtirada soo ma oo garab iga siiya mahayi tuulooyinka reer afgaab ay degnaayeen maalinkii fidmo reer afgaab la bilaabahayane kulli way soo guurahayaan gaaris bay imaanahayaan dhadhaab bay tegahayaan hadduu ilaahay yidhaha aniga waxaan la tashan doonaa tuulooyinkii aan mas-uulka ka ahaa kuwa baahanee reer afgaab cidda dhibaysana waan u sheegi doonaa hadduu ilaahay yidhaha oo mustaqbalkooda iyo dantooda inay ka tashadaan u diidan markaasaan leeyahay xanuun baa iga cabaadiyey waxaa jira tuulooyin badan oo reer afgaab oo ceelal aan lahayn oo 2 sano aan booyad ku waraabinahay labadaas sano aan booyad ku waraabinahay tuulooyinka dadka u dhashay ee reer afgaab waa beec mushtar waa siyaasi waa aqoon-yahan hal maalin booyad ay soo diraan oo cidaanad uga ay dheheen ma arkin soo nasiib darro maaha maalinkii fidmo reer afgaab ay bilaabatana hantidooda ay bixinahayaan geed walbay taaganayaan waqti waxay gaari doontaa aan reer afgaab u sheegi doono dadka ayaga marka soo dhawaada reer dal cabdilow soo dhawaada meediyaha soo dhawaada media team soo dhawaada aad baad u mahadsantihiin 100% go-aanka maanta meeshan ka soo baxay ogaasku uu soo saari doonana hadduu ilaahay yidhaha reer afgaabna waa loo geen cawliyahan baa loo geen dhadhaab baa la geen horna waan u socon doonaa insha allah warar fada badanna waad maqli doontaan isla galabta iyo berri oo ka soo bixi doona xarooyinka qaxootiga iyo dhadhaab iyo war fara badan oo ku farxadaana waad maqli doontaan 100% aad baa mahadsantihiin